بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan u joognaa inaan muujino cabashooyin iyo dhibaatooyin saxaafadda ka haysta xorriyatul qowlka iyo inay madax bannaanaato sababaha aan saas u nalnaa waxay tahay muddo dheer oo aan saxaafadda ku soo jirnay oo aan soo shaqaynaynay oo aan warbaahinta ka soo hadlaynay waxaan la kulmaynay marba caqabad maanta caqabada haysata ribootarada ama ragga dumarka wariyaasha ka magaalada Muqdisho waxay tahay in xog ku filan ay heli waayaan dhacdada maanta nagu dhacday waxay ahayd mid saaka soo bilaabatay 6 subaxnimo ayaan halkan nimid oo shaqo madaxtooyada Soomaaliya villa Soomaaliya kaga yeeray oo ahayd in la dhagax dhigaayo wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo dawladda Qatar ay bixinayso mashaariicda dhismaha meeshaas ku baxay halkaas waxaan ku wargeliyay inaan tagi doono oo aan ka soo aruri doono xogaha kala duwan ee halkaas lagu soo bandhigayo ma dhicin muddo 7 saacad ah ayaan halkan fadhinay oo ah xarunta maqaayadda The Village ee ku taala guriga hooyooyinka waxaan u nimid inaan halkan isku aruursano oo aan baxno oo aan tagno Tradisha X Control Afgooye taasi waxay noogu yeertay madaxtooyada Villa Soomaaliya qaybteeda warbaahinta ma dhicin waxa dhacday in la jaala buuteeyo oo team kamida madaxtooyada ay aadaan halkaas oo xogta ka doonaan innaga oo ahayn suxufiyiintii madaxa bannaanaa ee u shaqeynayay idaacadaha telefishinada iyo wakaaladaha kala duwan ee wararka fidiya ma aadin oo halkan ayaan joognay mar dambe waxaan ka war helnay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu tagayo X Control Afgooye isla markaana isaga iyo saraakiil ka socota dawladda Qatar ee dhagax dhigayaan wadadaas marka inaga xogtaas ma haysano mana tigin mana dhicin inaan aadno sabab la xiriira in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha qaybta production media ay leeyihiin ay aadaan ay soo duubtaan dhinacaas annagana meeshan nolo ku lugooyay oo aanan aadin shaqadaasna aanan tigin markaan is xog wareysanay waxaan ogaanay in madaxtooyada arinta gacanteeda ay ka baxday oo xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqada ay ku wareegtay marka caqabada haysata suxufiyiinta magaalada Muqdisho ka howlgasha waxay tahay in hay'adaha dawladdu ay sameystaan xafiisyo production ah oo muuqaalada iyo codadka iyo sawirada iyo qoraalada soo dira marka taas waxaan halkan ka cadeynaynaa inaanan haysan xornimo saxaafadeed oo aan ku helno xog nagu filan bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantiin sida la socotiin saaki halkan waxaa imaanay 12 subaxnimo haddana waa 7 saac maalinimo 7 saac oo xiriir ah halkan ku sugnayn oo ah guriga hooyooyinka goob inta badan ay isugu yimaadaan wariyaasha sida la socotaan waxaa xalay naczuumay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada si loo baahiyo war ku saabsan in la dhagax dhigayo wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo mashaariic ay bixisay dawladda Qatar muddo markii halkan aan ku sugnayn waxa dhacday sida la socotaanba in naloo sheegay in shaqadii halkan u joognay lagu wareejiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha sida daraadteedna iyaga ay saxaafadda ay kaxin doonaan adii wixii aan sugnaa waxa naloo sheegay markii dambe in shaqadii la qabtay qayb production ah oo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu la sameeyay oo media quseeyay inay shaqada soo qabanayaan anagana naloo soo diraayo muuqaalo la soo diyaariyay arintan wax soo noqnoqdo waaye cabashaana ka nahay saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha ku sugan Muqdisho ee wardoonayaasha ah muddooyinkii ugu dambeeyay waxa saarna xayrad noocan ah shirar badan oo muhiim ah oo magaalada ka dhacay oo xoog badan ka heli lahayn saxaafadda waxa la dhahay muuqaalada waa in la soo dira emailada waxa ku soo dhacay sida walaalkay uu sheegay muuqaalo la soo jarjaray marar qaar ee details la soconin wixii aan warka ka sameeyay aan la socon xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waxay sameysteen qolyo warbaahinta la shaqeeya oo wararka dhaca iyaga soo dira oo video ka sameeya marar qaarna qoraal ay soo raacayaan marar qaarna qoraal aan la soo dira marka waxyaabaha cabashada ka nahay arintan saaka dhacdo oo kale oo in badan na soo noqoto waxa codsanaynaa in saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha ku sugan Muqdisho shaqooyinkoodii sidoo hore u qabsan jireen ay u qabsadaan loona fududeeyo waxyaabaha ay ugu baahdaan ee xafiisyada madaxda dawladda waa mahadsantihiin asxaabta aan isku shaqadanahay maanta aan halkan ku sugnayn muddo 7 saac waxaan u joognay shaqo xafiiska madaxweynaha xalay warbaahinta looga yeeray taasi oo ahayd wada la dhagax dhigayo muddada 7 saac xiriir ahayd waxaan ugu jira dad aanan saakay soo lugeeyay kuwa aanan soo quraacan
xilli shaqada loo soo wada cararayay balse taas ma dhicin arrintan aan maanta ka hadleyno waa arrin xanuun badan oo dhowr marna lagu sameeyey taasi oo ah in shaqooyinka noolaga waca xafiisyada ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kadibna markaan dhowr saacadood oo badan aan joogno oo xiriir ah lana dhaho waa fasaxan tihiin shaqadan inkastoo xafiiska madaxweynaha noolaga yeeray haddana markii dambe waxaana lagu wargeliyey in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu la wareegay shaqadaas laakiin xafiiska ra-iisul wasaaraha dhowr mar oo isku xigto shaqada noolaga yeero waana laga baajiyaa ayadoo marka dambena miidiyaha ayaga u jooga ay soo jajaraan oo noola soo diro taasna ma ahan mid cadaalad ah mid sax ah ma ahan shaqadii annaga aan lahayn oo aan sida saxda u qabsan lahayn aa mar walba si kale loo weeciyaa tan kale dowladdan see u imaadaba xafiiska ra-iisul wasaaraha dhaqankaas uu ka jiray iyo ka madaxtooyadaba xafiiska ra-iisul wasaaraha dad miidiyaha ka soo shaqeeyey in badanaa imaadeen waxaan islahayn isbeddelaa dhacaayo sidii hore loona dhaqmi jiray waa liiska beddelaya laakiin taas ma dhicin oo mid ka sii daranaaba dhacdaba in laguu yeerto shaqadina aadan qabanin meel cidla ah iska joogtid waxaan joognaa hooyooyinka oo dhowr tallaabo u jirto madaxtooyada xitaa ma jirto tixgelin iyo ixtiraam noola haayo madax banaanina hadeertaan iyo xuquuqdii aan lahayn ma helno sida bahda miidiya ay ku cabanayaan maanta magaalada muqdisho caqabado badanaa jira madaxtooyada Soomaaliya oo dhammaanteed qaybo kala duwan leh sida xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha waxay wariyaashu ka yihiin cabasho buuxda oo ku aadan in loo diiday inay soo bandhigaan xaqiiqda jirta ee wararka la tabinayo sanad ka hor ay ahayd markii dawladda Qatar ay saxiixday heshiiskan lagu dhisayo jidadkan la doonaya maanta in la dhagax dhigo 7 saacadood xiriiraha la joogay sida ay sheegeen wariyaashii iga horeeyay waa sax waan ku raacsanahay laakiin caqabada taagan waxay tahay inaan warbaahinta madaxa bannaan aan loo ogoleen inay inta tagaan goobaha wararka saxda ay ka jiraan ay soo tabiyaan wararka si madaxda halkaas tagaysa looga ilaaliyo warbaahinta madaxa bannaan ayaa madaxtooyadu waxay sameysay warbaahin kale oo madax bannaan oo iyaga hoos taga sidaa daraaddeedna inta soo duubaan muuqaalada oo ay soo jarjaraan oo qofka siyaasiga ah meel kasta oo xanaf leh oo ama dawlad kale wax looga sheegayo ama maaragtay wax kasta dhalin kara war saxa oo niyuusa ayaa laga soo reebaa wariyaashu waxay cabasho ka yihiin xafiisyada miidiyaha ee madaxtooyada Soomaaliya sida kan ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha 7 saacadood halkaas joognay waxaan u dul qaadanaynay inaan helno gudbinta war sax ah oo quseeya sanad kadib wax dib u dhigay in maaragtay mashruucaas la dhagax dhigo su'aalo badan oo dadweynuhu doonayaan in looga jawaabo ay ahayd tabinteenu saakin ay ka jawaabto laakiin taas waxa hor istaagay madaxtooyada qaybaheeda kala duwan beesha caalamka iyo dadka Soomaalida ee waxgaradka waxaan u sheegaynaa in aysan jirin madax bannaani ee haysato warbaahinta gaar ahaan dadka wararka raadiya ee aan anigu ku jiro waana mahadsantiin sida tiimkii ugu horeeyay sheegeen saakalkan waxa ka dhacday arin aan cusbeen laakiin taadi kala ah waxa jirtay muddooyinkii dambaba in dhanka iyo meediyaha iyo xafiisyada dawladda ay xiriirkoodu wanaagsaneen marka loo eego wardoonayaasha waxa jiray sida la sheegaba in team production oo ay leeyihiin xafiisyada ugu sareeya dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay jiraan oo ay wararka soo sameeyaan iyagu ay go'aan ka soo gaaraan kadibna ay xarunta soo diraan iyadoo sida ay jirtay ayaa saaka waxa dhacday in xafiiska madaxweynaha oo meediyihii u yeeray xalay ku wargeliyay in shaqo la aadayo aroor hore soo kalaho la isugu yimaado maqaayada village saakay halkan ayaa loo soo wada kalahay iyadoo wadooyinka ay xiran yihiin qofku uu ku imaanayo si dhibaato kala soo kulmayo in uu soo gaaro halkan lagu balamiyo waxa dhacday in xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la wareegay barnaamijkan ah in saakay la dhameystira ama la bilaaboba heshiiskii qadari dawladda ee dhagax dhiga ahaa in xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu ka gudbay in meediyihii la casuumay uu wado halka uu geeyo ama uu la macaamilo uu kala shaqeeyo sidii ay u heli lahaayeen wararka ay u soo baxeen xafiiska madaxweynaha oo inoo yeeray waxa uu inoo sheegay in ciladu ay ka timid dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan hadlayna waxay tahay in dhibaatadan ay soo jirtay wariyahan Muqdisho ku sugan uusan si sax ah u heli karin xogta xafiisyada dawladda una xaq u leeyahay inuu xogtaasi helo u gudbiyo bulshada u adeego marka tan waxay muujinaysaa in xogta la qarinayo in la soo jarjarayo in xaruntii kadib loo soo dirayo sidaana bulshada aan ugu baahinayno ma aha sax waxaan qaldeena bulshada aan u shaqeynayna qaldeena haddii aan sidaan ku sii socono waa masantiin